Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaasheena idilkiina meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noo daawanaysaan. Halkani waa janaalkeena Hoggaan Media oo had iyo jeer aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamka, dhacdooyinka dunida iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa 6 Abriil 2026. Tabintan waxaan ku eegi doonaa haddii Rabbi uu qadaro. Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaal cusub oo qaada bambooyin badan ama lagu sheegay cluster bomb isla markaana leh awood dagaal electronic ah, taas oo muujinaysa horumar cusub oo dhinaca hubka ah. Dhanka kale, hogaamiyaha mucaaradka Taiwan oo nabad kala hadashay Shiinaha. Qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno tabinteena, balse intaan u gudgalin marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka haddii uu soo gaaro like noo saar. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena, fadlan nagu soo biir oo janaalka subscribe noo dheh, gambalaalkana furo si ay ku soo gaaraan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. Magacaygu waa Hashim Adam. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Hagaag, haddii aan ku horeyno qodobkeena ah, Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaal cusub oo qaada bambooyin badan ama lagu sheegay cluster bomb isla markaana leh awood dagaal electronic ah, taas oo muujinaysa horumar cusub oo dhinaca hubka ah. Haddaba, iyadoo Kuuriyada Waqooyi horey ay u tijaabisay madax gantaal ballistic ah iyo hub electronic ah, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Korean Central News oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano KCNA. Talaabadan ayaa loo arkaa mid ka mid ah dadaalada Pyongyang ay ku muujinayso awoodeeda dagaal casri ah. Hay'adda sayniska difaaca ee dalka iyo maamulka gantaalada ayaa sidoo kale sameeyay tijaabooyin ku saabsan bambooyin ka samaysan carbon fiber iyo nidaam gantaalo lidka diyaaradaha ah oo gaadiid lagu qaadi karo oo gaaban ama lagu magacaabo Mobile Short Range Anti-Aircraft Missile System, sida ay sheegtay KCNA. General Kim Jong-sik ayaa kormeeray tijaabooyinkan ayaa sheegay in nidaamka hubka elektrooniga ah iyo bambooyinka carbon fiberka ah ay yihiin hanti qaran oo qiimo weyn ku leh ciidanka militariga ee Kuuriyada Waqooyi. Dhanka kale, taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed Joint Chief of Staff ayaa Arbacadii sheegay in Pyongyang ay maalmo xiriir ah tijaabisay gantaalo dhowr ah. Haddaba, falanqeeyaal badan ayaa sidoo kale u arka tijaabooyinkan in ay yihiin bandhig awood militari oo ay Kuuriyada Waqooyi u dirayso fariin cad oo ku socota cadowgeeda iyo xulafadeeda, si ay u muujiso baalyiri horumarka ka samaysay hubka casriga ah iyadoo horey ay u haysatay hub nuclear ah. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi ayaa lagu wadaa in uu Khamiista ka bilaabo booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagayo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale jira mala-awaal siyaasadeed oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayi karo in uu la yeesho kulan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un inta uu ku guda jiro safar uu ku tagi doono Shiinaha bartamaha bisha May, iyadoo aan si cad loo sheegin tirada gantaalada balastiga ah ee la riday, taas oo jabinaysa cunaqabateynta qaramada midoobay. Haddaba, Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay in ay tijaabisay nidaamka gantaalada lidka diyaaradaha ee gaadiidka lagu qaadi karo iyo sidoo kale awoodda dagaal ee madaxa gantaalka balastiga ah ee tacticalka ah. Mid ka mid ah tijaabooyinka ayaa muujiyay in gantaalka balastiga ah ee dhulka laga rido ee lagu magacaabo Hwasong 411 oo wata madaxa bambaanooyin badan oo awood u leeyahay in uu dambas ka dhigo bartilmaameed kasta oo ku fidsan dhul gaaraya ilaa iyo 7 hektar, qiyaastii 17 acres, sida ay sheegtay KCNA. Dagaalka elektrooniga ah. Tijaabooyinkan ayaa sidoo kale yimid kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay mar kale ku celisay in Kuuriyada Koonfureed u aragto cadow cad oo colaadeed.
Arrintan ayaa meesha ka saartay baa la yiri rajadii dhawaan laga qabay in xiisadda ka taagan jasiiradda Kuuriyada ay yaraato. Lim Il-chul oo ah professor ka tirsan jaamacadda Kyongnam ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato in ay cusboonaysiinayso nidaamyadeeda hubka iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyad casri ah oo ku habboon dagaalada maanta. Wuxuu sheegay in nidaamka hubka elektarooniga ah uu awood u yeelan karo inuu curyaamiyo wareegyada elektarooniga ee qalabka cadowga, taas oo suurtagal ka dhigi karta baa la yiri in la dhaawaco ama naafo ka dhigi kara diyaaradaha dagaalka qarsoodiga ah ee F-35 Lightning II ama maraakiibta dagaalka ee ku qalabaysan nidaamka difaaca Aegis Combat System. Bambooyinkan kaarboonka fiberka ah oo horey ay u sameeyeen quwadaha militariga ee horumarsan sida Mareykanka iyo China ayaa awood u leh in ay curyaamiyaan kaabayaasha muhiimka ah sida xarumaha korontada iyagoo ku firdhiya xargo khaliif oo ku samaysan carbon fiber oo u gudbiya koronto. Lim wuxuu sheegay in hubka noocani ahi uu noqon karo mid aad u waxyeelo badan haddii dagaalka uu dhaco. Kuuriyada Waqooyi waxay sidoo kale sheegtay in ay samaysay tababar rasaas lagu rido iyadoo loo adeegsanayo agab ceyrin oo jabin, taas oo muujinaysa baa la yiri in ay qorsheynayso wax soo saar ballaaran oo hub ah sida uu sheegay Yong Mujin. Dhanka kale, Song Seong-jong oo horey uga tirsanaa wasaaradda difaaca ee Seoul ayaa sheegay in soo bandhigista hubkan ay adkeyn karto istiraatiijiyadda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ee ka dhanka ah khataraha Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale, Shin Jong-woo ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay casharo ka baranayso dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe. Wuxuuna sheegay in markii ugu horeysay Pyongyang si cad u muujisay in ay doonayso hub lagu weeraro kaabayaasha warshadaha ee Kuuriyada Koonfureed. Shin ayaa yiri waxay u muuqataa in Kuuriyada Waqooyi ay hubkan u horumarinayso iyadoo maskaxda ku haysa qaabka dagaalka aan isku dheelitirka ahayn. Taas waxaa muhiim u ah awood lagu soo saaro hub tiro badan iyo sidoo kale in dagaalka elektarooniga ah loo adeegsado carqaladeynta shabakadaha korontada iyo kaabayaasha warshadaha. Dhanka kale, hogaamiyaha mucaaradka Taiwan oo nabad kala hadashay Shiinaha iyadoo xisbigeedu uu ka maqnaa doodaha miisaaniyadda difaaca ee Taipei. Cirku waa inuu noqdaa meel ay shimbiruhu ka duulaan ee uusan noqonin meel gantaalo lagu kala rido, ayay tiri hogaamiyaha mucaaradka Taiwan Jin Li-won iyadoo ku sugan magaalada Shanghai. Hadalkeeda ayaa ahaa baaq nabadeed xildhibaanada dowladda ee ku sugan Taipei ay si caro leh ugu dhaliileen xisbigeeda in uu ka baaqday dood muhiim ah oo ku saabsan miisaaniyadda difaaca. Jin oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Taiwan ee KMT loo yaqaano ayaa ku sugan China safar ay ku tilmaantay safar nabadeed, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in la yareeyo xiisadda sii kordhaysa xilli China ay kordhisay cadaadiska militari ee ay ku hayso jasiiradda ay sheegtay in ay iyadu leedahay. Beijing waxa ay diiday in wadahadal ay la gasho madaxweynaha Taiwan Lee Ching-te iyadoo ku tilmaantay gooni u goosade. Dowladda hogaamiyo Lai ayaa dhankeeda ku boorisay Chen in ay Shiinuhu u sheegto in uu joojiyo hanjabaadaha militari isla markaana Beijing ay la hadasho dowladda dimuqraadiga ee shacabka Taiwan ay doorteen. Marka la hadlaysay wariyaasha ku sugnaa dekedda Yangshan Port, Chen waxay sheegtay in ay aad ula dhacdo sida badmaaxinta qadiimiga ah ee Norse ay badda ugu yeeri jireen wadada Nibriga. Waxay tiri hadalkaasi waa mid ismuujinaya is-hoosaysiin weyn, waana run dhab ah. Cirku waa in uu noqdaa meel ay shimbiruhu ku duulaan ee uusan noqon meel gantaalo lagu rido. Biyuhuna waa inay noqdaan meel ay kalluunka ku dabaashaan ee aysan noqon meel ay maraakiibta dagaalka ay ku socdaan. Hadalkeed oo si toos ah loogu baahiyay telefishinka Taiwan, Chin
waxay sidoo kale soo xigatay qayb ka mid ah gabayga dagaalkii koowaad ee uu qoray John M. Cray kaas oo lagu yiraahdo In Flanders Fields, waxayna Ingiriisku ku soo qaadatay tuduc ka mid ah gabaygaas: If you break faith with us who die, we shall not sleep. waxayna intaa ku dartay waxaa laga yaabaa inaanu awoowayaasheena siin karin nabad ay heleen, balse weli waxaan awoodnaa inaan nabad siino dadka maanta nool iyo jiilalka mustaqbalka. Jen ayaa sidoo kale la filayaa in Khamiista u duusho Beijing, halkaas oo suurtagal ay tahay in ay kula kulanto madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. doodaha miisaaniyadda difaaca oo hakad galay dhanka kale magaalada Taipei, xildhibaanada xisbiga talada haya ee DPP ayaa si adag u cambaareeyay xisbiga KMT kadib markii uu ka maqnaa doodaha baarlamaanka ee ku saabsan qorshe lagu kordhinayo kharashaadka difaaca oo gaarayo 40 bilyan oo dheeraad ah. Jen Quantin oo ka mid ah madaxda guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka ayaa yiri: ha u dhigin arintan si ula kac ah, sababtoo ah kulan aad beri la yeelan doonto Xi Jinping. Arintaasi ha ku xiran shuuciyiinta Shiinaha. ilaa iyo hadda midna China iyo KMT si rasmi ah uma xaqiijinin in Jen ay Jimcaha la kulmi doonto Xi Jinping. xisbiga KMT oo sheegay in uu taageersan yahay kordhinta miisaaniyadda difaaca balse aanu saxiixi doonin Jack Banaan ayaa sheegay in safarka Jen ay ugu yeereen booqashada nabadda ee dhulka weyn Mainland uusan wax xiriir ah la lahayn miisaaniyadda difaaca gaarka ah. Afhayeenka golaha dejinta siyaasadda Taiwan ee la xiriira Shiinaha, Liang Wenqian, ayaa sheegay in uu rajaynayo in Jen ay Shiinuhu u sheegto in uu joojiyo cadaadiska military, isla markaana uu ixtiraamo rabitaanka shacabka Taiwan ee ah in iyagu ay go'aamiyaan mustaqbalkooda. Si kastaba ha ahaatee, Beijing waxay sii waday dhaqdhaqaaqeeda military ee maalinlaha ee ku xeeran Taiwan, inkastoo Jen ay booqasho ku joogto Shiinaha. wasaaradda difaaca Taiwan ayaa sheegtay in 24kii saac ee lasoo dhaafay la arkay 6 diyaaradood oo military oo Shiinaha leeyahay iyo 8 markab oo dagaal oo ku wareegaya jasiiradda. Michelle Lin oo ah afhayeenka xisbiga DPP isla mar ahaantana xildhibaan ah ayaa boggeeda Facebook ku qortay: xaqiiqdu waxay cadeynaysaa in hanjabaadda military ee shuuciyiinta Shiinaha ee ka dhanka ah Taiwan ay sii xoogaysanayso. waxayna intaa ku dartay: Jin Linwon waxay safarkeedu ku jirtaa 2 maalmood, haddana shuuciyiinta Shiinaha weli waxay mindi saarayaan cunaha Taiwan. madaxweynaha Taiwan Lin Jant ayaa marar badan ku baaqay wada hadal uu la yeesho Beijing, isagoo si cad u diiday sheegashada Shiinaha ku aadan madax banaanida jasiiradda, wuxuuna ku adkaystay in mustaqbalka Taiwan ay go'aamin karaan oo kaliya shacabka jasiiraddaasi. Hagaag, waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada muuqaalkeena. fadlan muuqaalka like noo saar oo la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faalooyinka noogu reeb. tan iyo intaan tabinteena dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.